subax wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan halkan waa channelkeena YouTube-ka shabakada wararka calankeena news u diyaar garoobo wararkeena subaxnimo waa subaxnimo Jimcaha taariikhdan ay ku beegantahay 25 bisha 9 2020 wararkeena subaxnimona waxa kamid ah Wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa wali wada tashadii ugu dambeeyay ku soo magacaabay golihiisa wasiirada iyo shakhsiyaadka laga yaabo in ay ka soo dhex muuqdaan wasiirada dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka soconaya madaxtooyada iyo wararkii ugu dambeeyay aan eegi doonaa hay'adda lacagta adduunka IMF oo sheegtay in dakhli aruurinta dawladda Soomaaliya saameyn weyn uu ku yeeshay xanuunka coronavirus ee fatahaado ku dhuftay Soomaaliya dawladda Soomaaliya oo sheegtay inay kordhinayso la dagaalanka lagu jiro musuqmaasuqa xilli Soomaaliya kaalinta koowaad kaga jirto wadamada ugu horeeya wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo sheegay in Soomaaliya ku gudubtay wajiga koowaad ee wada hadalka heerkiisa ugu sareeya dhamaystirka dinacafinta saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda oo faahfaahin ka bixiyay horjoogayaal kamid ah al-shabaab oo lagu dilay Shabeellaha Hoose wasiir ka tirsan dawladda Soomaaliya oo sheegay in sii kordhay maraakiibta kalluumaysiga sharci darrada ka sameynaya xeebaha Soomaaliya Trump oo shakil geliyay xilka wareejin doona in dacwad lagu soo oogayo madaxweynihii hore wadanka Faransiiska ayaan eegi doonaa qodobadaasi kuba kale ayaa qayb ka noqon doona wararkeena subaxnimo kamid noqon saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe inoo dhig gambalelkana taabo say kugu soo dhacaan muuqaalada warbixinada sheekooyinka iyo dhacdooyinka ugu waaweyn halkan aan ku bayno aan ka hormar warbixinta ugu horeysa ee daawadayaal ee saakay Ra'iisul Wasaare Roble ayaa wada tashadii ugu dambeeyay uu ku doonayay inuu ku soo magacaabo golihiisa wasiirada asagoo tan ilaa shalay ilaa xalay madaxtooyada Soomaaliya ka wada tashiin la xiriira dhismaha xukuumaddiisa ee dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa shalay si gaar u qaabilay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe si lamid ah wuxuu qaabilay madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare dhammaan xubnaan ayuu kala hadlayay qorshaha ku saabsan xukuumaddiisa iyo xoojinta xiriirka dawladda ee maamul goboleedyada si aan baqalida qorshayaasha horumarineed iyo arrimaha siyaasadda xalay madaxtooyada sidoo kale waxa ka dhacay kulan u dhaxeeyay ra'iisul wasaaraha cusub iyo xubno kamid ah xildhibaanada baarlamaanka siyaasiyiin iyo shakhsiyaad kale kuwaas oo ina galaangal xoogan ugu jira sidii kaga soo dhex muuqan lahaayeen xukuumadda cusub ee laga sugayo Masar Roble inuu soo magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa sidoo kale ahmiyad gaar ah siinaya xubnaha sida weyn u dhaliilsan madaxtooyada Soomaaliya ee mucaaradka kaas oo kala tashanaya qorshaha siyaasadda Soomaaliya doorashada iyo dhismaha xukuumaddiisa xukuumadan oo ah tii ugu waqtiga yareed marka loo eego inta muddo ee bil ah dawladda Soomaaliya u hartay muddo xileedkeeda ayaa waxa hortaala howlooyin shaqooyin ay ka mid yihiin qabsoomida doorashada hadda lagu heshiiyay dhinacyadu ay bilaaban doonto doorashadaasi bisha November ee foodan ugu soo hayso hirgelinta doorasho waqtigeeda ku dhacda iyo sidoo kale 8 qodob ee ra'iisul wasaaruhu baarlamaanka ka hor sheegay ee ah dhamaystirka dastuurka cadaaladda amniga iyo dagaalka al-shabaab oo dhammaanba ay qayb ka yihiin waxyaabaha hadda xukuumaddiisu hor yaala ee la doonayo inay fuliyaan 4 bil ee kaga hartay muddo xileedka madaxweyne Farmaajo xubno kamid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa xalay ku sugnaa xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo siyaasiyiin kale ayaa kala hadlayay qorshaha ku saabsan dhismaha xukuumadda cusub waxaana soconay dadaaladii ugu dambeeyay ee ku aadan in toddobaadka soo socda lagu soo magacaabo xubnaha liiska golaha wasiirada maalinta Sabtida ah ayaa sidoo kale baarlamaanka Soomaaliya waxa lagu wadaa in la horgeeyo sharciga ama waashiiska ay gaareen dawladda Soomaaliya ee maamul goboleedyada ay ku qatamo arrimaha doorashooyinka madaxda dawlad goboleedyada ayaa dhamaantood baa galaangal xoogan ugu jira sidii baarlamaanka ay u meel marin lahaayeen sharcigii waashiiskii doorasho ay wada gaareen dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada kaas oo la doonayay in sharci laga dhigo inkastoo maamul goboleedyadu ay madaxdooda dhammaan bay la kulmeen xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee badi laga soo doortay deegaanada ayna ugu dambeeyay kulankii shalay Muqdisho ay ku wada qaateen madaxweyne Waare iyo qaar kamid ah xildhibaanada baarlamaanka labada aqal ee laga soo doortay gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo kala hadlayay qorshaha ku aadan meel marinta heshiiska ay gaareen dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in sii kordhayso maraakiibta sharci darrada ah ee kalluumaysiga ka wada xeebaha Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay bilihii la soo dhaafay jireen maraakiib laga leeyahay wadanka Iran iyo kuwa kale oo gudaha Soomaaliya gaaraan xeebaha ku soo xadgudbay
wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga xukuumadda Soomaaliya Abshiro ayaa sheegay inay isku dayeen in ay dacwad ka gudbiyaan dhammaanba maraakiibta kalluumeysiga sharci darrada ka sameeyay xeebaha Soomaaliya si la mid ah wasiirka dekedaha ee gaadiidka badda ee xukuumadda Soomaaliya Maryan Aweys Jaamac ayaa ina dhankeeda sheegtay inay qaati ka tageen maraakiibtaasi hase yeeshee dowladda Soomaaliya ay ka baaraandegayso dhammaanba in maraakiibta kalluumeysiga ka wada xeebaha Soomaaliya ay dacwad ay la tigsato laba bil ka hor waxa badeena soo galay ku dhawaad 300 oo maraakiib iyo doomo isku jiro oo wadanka Iran laga leeyahay waxaan sameeynay wixii media adduunka la xiriirin awood aan lahayn anaga waa media bis way naga tageen hadda isbuuc la soo dhaafay hadana ku soo laabteen haddana waxaan sameynaynaa campaign inaan uga saarno afkana uga saarno oo aan ugu dacwoono dhammaan hay'adaha quseeya kalluunka sida IOTC iyo Indian Ocean Commission oo xiriir dhow aan leenahay ama member ka nahay wasaaradda inay hesho shuruudihii lagu maamuli lahaa barnaamijyadan baa hadda weyn leh wasaaraddu waxay ka shaqaysay in ay soo saarto policy lagu maamulayo maraakiibta ganacsiga oo runtii hay'adda International Maritime Organization gacan weyn ay ka geysatay sidoo kale waxaa na garab taagan oo arrimahan baa hadda leh nagu garab taagan hay'adda EU Camp oo runtii aad u danaynaysa ama aan ka dhaadhicinaba inay aqoontan la hormariyo si ummadda Soomaaliyeed uga faa'iideystaan badan baa hadda leh oo runtii iska yaala dadkeenana ay runtii aqoontooda ay ku yartahay Maryan Aweys ay ahayd wasiirka gaadiidka dekedaha badda waxaana ka sii wareeyay wasiir ku-xigeenka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee Soomaaliya oo labaduba sheegay inay sii korayaan maraakiibta kalluumeysiga ee sharci darrada ay ka sameynayaan xeebaha Soomaaliya hay-adda lacagta adduunka IMF ayaa sheegtay in dakhli aruurinta dowladda Soomaaliya ay sameysay uu saameyn weyn ku yeeshay fayraska corona iyo fatahaado ku dhuftay qaybo ka mid ah Soomaaliya warkaasi warka la xiriira wasiirka maaliyadda oo sheegay in Soomaaliya ay ka gudubtay wajiga koowaad ee heerka dhamaystirka qorshaha dinacafinta Maryan Aweys ayaa soo koobay koox shaqaale ah oo ka socota hay'adda lacagta adduunka IMF oo uu hogaaminayay Alison Holland ayaa wada hadallo la yeeshay mas'uuliyiinta Soomaaliya intii lagu guda jiray September 12 oo ku saabsanaa dib u eegista ugu horeysay ee barnaamijka dib u habeynta dhaqaalaha Soomaaliya intii lagu guda jiray nuskii hore ee sanadka 2020 Soomaaliya waxaa soo food saaray dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin daadad ayax iyo cudurka faafa ee adduunka coronavirus kuwani waxay sii xumeeyeen caqabadaha bani aadanimada waxa ayna saameynta la taaban karo ay ku yeesheen dhaqaalaha iyo awoodda dowladda federaalka Soomaaliya taasi oo sababtay in dhaqaalaha Soomaaliya halkii la rabay uu gaari waayo dadaalada waxay hoosta ka xariiqeen taageero muhiim ah oo ku timaada bulshada caalamka waxaana ka mid ah ka dhaafida canshuuraha ku meel gaarka ah ee qaar ka mid ah badeecooyinka aasaasiga ee cuntada soo bandhigida nidaamka xawlaadda lacagta oo looga talagalay kuwa uga nugul baxanaano iyo sidoo kale daafurka xarun amaha masgargaar oo looga talagalay shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka inkastoo ay jirto xiisada mas'uuliyiintu waxa ay si adkeeyeen ballanqaadkoodii xooga badnaa ee horumar lagu qanco oo ku saabsan hirgelinta siyaasadaha muhiimka ah ee hoos yimaada barnaamijka dheefsiinta dheeraadka ee ECF iyaga oo taageeraya heshiisa heer shaqaale ah oo ku saabsan dhamaystirka dib u eegista koowaad ee dhaqaalaha Soomaaliya dakhliga guud ee ka soo xarooda gudaha ilaa iyo bishii June dowladda federaalka Soomaaliya FGS wuxuu u gaaray 99 milyan oo dollarka Mareykanka ah marka loo eego iyadoo barnaamijka asaasiga la qorsheynay inuu gaaro 109 milyan mas'uuliyiintu waxa ay ka codsan doonaan ka dhaafida guddiga fulinta ee IMF si loo gaaro
dhaqaalaha Soomaaliya hal meelihii loo qorsheeyay tallaabooyinkan la qorsheeyay si loo hubiyo in dakhliga gudaha uu soo kabsado sanadka 2021 wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Duxaale Beyle oo ka hadlayay wajiga labaad ee deyn cafinta Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya ay u gudubtay wajiga saddexaad si deymaha lagu leeyahay dalka looga cafiyo oo ahayd waxyaalihii laynooga baahnaa si aynu meel sare u soo gaadhno si deymaha oo dhan loo cafiyo waxyaalihii laynooga baahnaa inaan qabanno oo ah waxyaalo dalkan wax u taraya oo dhaqaalaha kordhinkiisa ah oo nidaamka maamul wanaagga lacagta ah oo habka aan maxu maamulano ah oo adduunkiisa aan soo gaadhno arrintaa iyada ah markaa imtixaankii ugu horreeyey ayaan galay aan ku jirnay imika 24 maalmood baan ku jirnay runtii shalay buu dhammaaday waxaan kasoo bilownay 31 bishii 8 ilaa iyo bishii 23 habeennimadii ayaan ku jirnay sidaan ugu jirnayna waxa weeyaan nidaamka zoomka ayaa la soo geliyay labada galabnimo marka laga bilaabo ilaa iyo 8 galabnimo waqtigeena oo iyagana laga soo bilaabayo 7 aroornimo ilaa waqti dambe afternoonka marka warqadda maanta soo baxday press release la yiraahdo waxay soo koobaysaa marka wixii uga soo baxay IMF ayay soo koobaysaa taasoo adduunkuna dhageysanaya adduunkuna akhrisanaya adduunkuna Soomaaliya wax ugu qaadaya way Soomaaliya sidee tahay qolada ka hadli karta waa ay laftood ay walba yada ay dhageysanaysa marka haddii akhrido si fiican waxa fahmaysaa in waxyaalihii laynooga baahnaayo oo dhan si fiican aan uga soo baxnay ayaa iyo tilmaamaysa shaqada waa laga wada qayb galay iyadoo oo hormuud ka yahay madaxweynuhu Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo hormuud ka yahay ayaa laga wada qayb galay shirarka iyo arrimaha ariidin soo sheegay wasaaradaha ay khusayso dhan ayaa wasiiradooda ka soo qayb galeen zoomka soo galeen su'aalo wixii la weydiiyay ka jawaabeen dowladda Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxay dadaalo xoogan ay ugu jirtay in dalka laga cafiyo malaayiinka dollar ee deymaha lagu leeyahay wararkeena kalena waxaa qayb ka ah dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in ay sii kordhinayso dagaalka lagu jiro musuqmaasuqa hay'adaha dowladda xilli warbixinadii ugu dambeeyay ee qaramada midoobay ee Soomaaliya wali kaga jirtay kaalmaha hore ee ku aadan musuqmaasuqa waxaan bootanaya eegaya سياحيها وزير عدالة حكومة الفدرالية ee Soomaaliya xilgaarsiinta ayaa sheegay in ballanqaadkii madaxweynaha ahaa in la dagaalamo musuqmaasuqa in wasaaradda wax weyn ay ka qabatay wuxuuna sheegay inuu diyaariyay muddada uu joogay shuruuciyo heshiisyo caalami ah oo lagu naafeeyo musuqa dalka ka jira ballanqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ahaa in laga hortago musuqmaasuqa la helo dawlad wanaag shuruucna loo diyaariyo wasaaradda cadaaladda wax weyn bay ka qabatay waxaan haddana aad iyo aad u soo dhaweynayaa oo ugu mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraheena cusub Maxamed Xuseen Roble oo asigana shilay khudbadiisa ku sheegay barnaamijka xukuumadiisa inuu ku soo dari doono qodobka ka hortagga ila dagaalanka musuqmaasuqa waxaan diyaarinay shuruuc waxaan diyaarinay siyaasooyin waxaan diyaarinay heshiisyo caalami oo looga hortagi karo waxaan aaminsanahay wasaaradda cadaaladda ahaan inaan hadda meel fiican arintaas marin hayno anagoo waliba ku dadaalhayno dib u habeynta garsoorka taas oo ay ka qayb qaadan doonaan insha Allah markii la dhiso golaha adeega garsoorka oo hadda baarlamaanka hor yaalo shaqo badan baa noo taasha doonta waa la wada saaran yahay dadka dawladda u shaqeeya iyo dadka u shaqeeyo shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo bulshada rayidkaba iyo culamaa u diin kulli waa doon la wada saaran yahay waxaa la rabaa dalkan xaaladda hadda ku jiro dhaqaale xaaladda hadda ku jiro amni xaaladda hadda ku jiro arrimaha bulshada xaaladda uu ku jiro xagga cadaaladda intaasba in wax laga qabto ayadoo la raacayo dawlad wanaag laga fogaanayo musuqmaasuq sidii shuruucdan ay u diideen dalka ayaa waxa lagu xantaa in musuq weyn uu ka jiro asii wareysay wasaaraha cusub waxyaabay uu ballan qaaday kamid ahay in cadaaladda wax uu ka qaban doono
ugu dambeyn dacwad ayaa lagu soo oogaya madaxweynihii hore wadanka Faransiiska dacwadaas ku saabsan in madaxweynihii wadankaasi Liibiya Muammar al-Qadaafi uu ka taageero waxyaabo badan taasoo keentay in hadda dacwada uu wajaho madaxweynaha wadankaasi waa madaxweynihii hore wadankaasi Faransiiska Nicolas Sarkozy maxkamad ku taal wadanka Faransiiska ayaa gacanta ku haysa codsi kaga yimid madaxweynihii hore wadankaasi Nicolas Sarkozy kaasoo dalbanaya in la burburiyo baaritaanka ku saabsan eedeymo loo soo jeediyay oo ah in lacago laaluusha uu ka qaatay hogaamiyihii wadanka Liibiya Muammar al-Qadaafi waqtigii talada hayay Sarkozy ayaa wajahaya dacwad la xidhiidha inuu hogaamiyihii hore ee Liibiya Muammar al-Qadaafi ka helay garab caawinaad oo waliba lacaga badan oo ku maareeyay ololihii doorasho ee uu galay sanadkii 2007 xukunka ka soo baxay maxkamadda ayuu racfaan ka qaadan doonaa magaalada Paris waxaana Master Sarkozy iyo waliba xubno kamid ah qoyskiisu ay sheegeen inay ka soo horjeedaan eedda maxkamadda racfaan ay qaateen hase eedeymaha loo soo jeediyay ayaa wali madaxweynuhu waxaa la sheegay inuu haysto fursad uu racfaan ku qaadan karo kana difaaci kara eedda kaga timid maxkamadan ku taal magaalada Faransiiska Master Sarkozy ayaa markii ugu horeysay eedan loo soo jeediyay oo ah inaysan wax sal ah ee raatoona ku lahayn markuu eedan loo soo jeediyay wareysi uu bixiyo sidaas uu ku sheegay waxa lagu eedeeyay waa arin aan loo hayn cadeymo muuqato ayuu yiri Sarkozy oo ka hadlayay ama la hay'adaha garsoorka maxkamadda sida uu qoray wargeyska ugu waaweyn ka soo baxay Liibiya wuxuu ku saabsan yahay kiiska Liibiya sanadkii 2013 Faransiiska ayaa furay baaritaan ka dhan ah ololihii doorasho ee Master Sarkozy kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya inuu ka faa'iideystay lacago malaayiin dollar oo si sharci darro ah markii hore ugu hayay madaxweynihii hore wadanka Liibiya Muammar al-Qadaafi wuxuu ku hanjabay ujeedadiisa ay ahayd in mar kale xilka madaxtinimada loo doorto sanadkii 2012 markaas oo doorashada Soomaaliya waa doorashada wadankaasi Faransiiska oo kaga adkaaday madaxweynaha hadda talada haya madaxweynihii hore ee wadankaasi Faransiiska ayaa dhamaanba eedeymahaasi gaashaanka u duriray eedeymahan oo markii ugu horeysay waxaa shaaca ka qaaday ganacsato Faransiis ah balse maxkamadda wadankaasi ay soo jeedisay bishii November sanadkii 2016 ayaa sidoo kale warbaahinta Faransiisku ay baahiyeen xogta ku saabsan 2006-2017 lacago lagu wareejiyay Master Sarkozy lacagahaas oo doonayay inuu markale ku soo laabto ololihiisa doorashada inkastoo lacagahaasi badi la sheegay inay isdhaafsadeen Muammar al-Qadaafi isaga laguna qiyaasay inay gaarayeen 6.2 milyan oo dollarka Mareykanka waa lacagaha wadanka lacagta dollarka Mareykanka xilligaas wixii ka dambeeyay waxaa bilaabatay baaritaano lagu sameeyay Master Sarkozy lacagahaasi halka laga keenay warkiisa waxaan wanaagta